السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشرة maanta waxa uu noqonayaa standard icons. Marka maanta waxaan baranaynaa waa maxay standard icons, imise ayaa loo ablaableeyaa ama imise ayaa loo kala qaybiyaa standard icons. Horta ereygan standard waa yani aasaas ama wax caadi ah. Iconsna waxay noqonayaan applications ama programs ama aduu qaabka u taqaanidba. qodobka labaad waxa uu noqonayaa maxay qabtaan standard icons iyo sidee loo qoriyaa standard icons, sidee loo soo celiyaa iyo sidoo kale sidee looga bedelaa naqshada standard icons. ugu horeyn standard icons waa applicationo aasaas ah ama programs aasaas ah kuwaas oo lagu keenay operating systemka aad isticmaalaysid. marka waxay ku xiran tahay adigu operating systemka ay isticmaalaysid noocuu yahay. tusaale ahaan hadda badanaa waxaa la isticmaalaa Windows operating system, sidoo kale waxaa jira Mac operating system iyo Linux. marka la joogo Windows operating system, applicationada standard iconska ah waxay noqonayaan shanta standard icons oo kala ah this PC, network, control panel, users files, recycle bin. So marka standard icons haddii loo qeexo waxay noqonayaan applicationada ama maxay yirahdaa iconska aasaaska ah ee lagu keenay operating systemka computerkaaga. standard iconskaas ma delete kartid mana tirtiri kartid computerkaaga, waa aasaas waana lagu keenay. marka maxay qabtaan marka standard icons? standard icons waxa ay qabtaan shaqooyinka muhiimka ah ee computerkaaga. tusaale ahaan recycle bin waxaa lagu keydiyaa wax kasta oo aad deletid ayaa lagu keydiyaa ama aad delete garaysid. sidoo kale network isaga waxaa loo isticmaalaa marka aad maxay yirahdaa aad file aad share gareynayso. sidoo kale iyo waxaa loo isticmaalaa marka computer aad rabtid inaad ku xirtid computer kale ama xafiisyada waaweyn ee shirkadaha waxaa la isticmaalaa network. sidoo kale this PC waa meesha aad ka helaysid faalasha computerka kugu jira ama xogta noocaas meesha aad ka helaysid, waxaa loo yaqaanaa this PC. marka si guud dhammaantood waxa ay qabtaan shaqooyinka aasaaska ah ee qof uga baahan yahay inuu ka qabto ama uu ku qabto Windows operating system. marka sidee loo qoriyaa, sidee baan loo soo celiyaa ama loo soo bandhigaa standard icons? marka waa inaa marka hore mid maskaxda ku haysaa. standard icons waa shan, waana this PC, network, recycle bin, users files iyo control panel. marka si aad u qorisid marka hore waxaa u baahan tahay inaad tagtid banaanka desktop. waxaan filayaa banaanka desktop waa la yaqaanaa. right click baa dhahaysaa, kadibna waxaa sii tagaysaa personalize, kadibna waxaad tagaysaa themes. waxaa sii tagaysaa desktop icons. marka meeshaan desktop icons waxaa laga yaabaa inay bartan kaaga soo muuqan weyso. marka haddii meeshan aad ka arki weysid, meeshan scrolling ku samee oo hoos u jiid, waxaa laga yaabaa in meeshan hoose aad ka aragtid. marka waxaa kusoo baxaya waa boxy launcherkan sanduuqa marka kusoo baxo. marka halkan waxaa uga jeedaa waa shantii standard icons. computer ama this PC waa isku midkii. sidoo kale waxaa ujeedaa users files, network, recycle bin iyo control panel. sawir ahaanna waa kuwaan meeshan bay ku yaalaan. marka haddii aad rabtid in aysan hadhow shaashada aysan kasoo muuqan, waxaad ka qaadaysaa saxda. marka kadib waxaa dhahaysaa apply, kadibna okay. hadda haddii meeshan aad fiirisid shaashada dhan applicationada yaalla haddaad fiirisid 5 standard icons meeshan kuma jiraan oo ma ka helaysid, sababtoo ah waa qarin oo saxda ayaan ka qaadnay. pointka saddexaad ayaa waxa uu yahay in aan soo celino oo aan dib u soo celino 5 standard icons. marka waxaad ku laabanaysaa isla meeshii, kadibna waxaad saxda soo saaraysaa shanta standard iconska. marka haddii aad dib u noqotid, bartan waxaa ujeedaa 1 2 3 4 iyo 5 shantooda meeshan ku jiraan. okay
midka afraad ayaa waxa uu yahay in qaabka ay yihiin tusaale ahaan hadda network qaabka sawirkan meesha saaran iyo recycle bin inaad bedeshid oo sawir kale oo aan la garanayn aada soo saartid. Okay, dib ugu noqon marka boxigiisa duuqa dib ugu noqon. Okay, marka meesha tan waxaa ku qoran change icon. Marka sawirka meesha saaran iconka ayaa bedelaysaa. marka si aad u bedesho waxaa u baahan tahay in marka hore aad dooratid midka aad rabtid inaad bedeshid. Okay, left click kadibna change ayaa dhahaysaa. marka meeshan waxaa ku yaala boqolaal iyo kumanaan sawiro oo meesha ku yaala ayaa jira. marka midkaa jeceshahay ayaad ka colanaysaa. sidoo kale haddii kuwan aysan ku qancinin oo aad u baahnayn waxaad aadaysaa meesha browse oo ah sawiro kale oo dheeri ii raadi. marka haddii ay jiraan sawiro kugu kaydsan meelahan ama adiga computerka kugu kaydsan this PC adoo isticmaali ayaad bartaan kala soo bixi kartaa. kadib waxaad dhahaysaa open. hadda anaga basic ahaan waxa aan dooranaynaa sawirada mid kamid ah. tusaale ahaan waxaa iska dooranayaa flightkan. waxaan leeyahay okay. marka haddii meeshan aad fiirisid waxa ay saaran diyaarad ba ay saaran. waayahay kan imo change icon dheh. waxaad doorataa khaladkan oo kale iska dooro. dhammaantood waa bedelayaa sawiradooda. heeg hadda waa dhameynay network. waa la bedelay qaabkiisii. sidoo kale recycle bin qaabkiisii waa uu ka bedelan yahay. this PC isna sidoo kale the users file isagana waa sidoo kale. control panel isaga ma aanu isbedelin. control panel isaga waa uu ka duwan yahay dhammaantood. afartaa kale waa uu ka duwan yahay. sababtan waxay tahay control panel waa settingka ama meesha laga sameeyo oo laga hagaajiyo computerka. marka maadaama ay tahay settingka computerka shirkadda Microsoft Windows si aan u noqon application mid lamid ah applicationada kale waxa ay ka dhigtay mid gooni ah. haddii aad fiirisid tusaalahaan sawirkiisa marka loo celiyo kan waxaa ku qoran recycle bin full, kan waxaa ku qoran recycle bin empty. waxaad dareemaysaa waxay tahay in labadoodu ay yihiin isku magac. shirkadda Microsoft Windows waxa ay doonaysaa in ay ilaaliso settingka computerka uu leeyahay. hagaag qodobka shanaad ayaa waxa uu yahay in sawirkooda caadiga ahaa aan kusoo celino. waxaad ku laabanaysaa settingka kadibna waxaad tegaysaa desktop icon settings. sanduuq marka kuu soo baxo waxaad dooranaysaa iconka kadibna waxaad dhahaysaa restore default. marka sidiisi caadiga oo defaultiga ah ayuu kusoo celinayaa. sidoo kale haddii maskaxdaadu ay fiican tahay ama xusuustaadu waxaad tegaysaa change icon kadibna waxaad dooranaysaa adigoo baaraya sawirkii asalka ahaa oo uu lahaa. markaad kan sawirka saxda maahan qaabkan ayaa kuu fudud inaad tirahdid restore default. hadda markaad fiirisid recycle bin iyo kan kale recycle bin kan booskan waxaa laga rabay in uu noqdo control panel laakiin waxa ay isku egyihiin recycle binkan kale. waa in shirkadda Microsoft Windows ay doonayso ama ay rabto in ay ilaaliso settingka computerka ee laga sameeyo. okay, marka haddii meeshan aad fiirisid kan waa soo celinay, kanna waa soo celinay, kanna inaga ayaa saaranay. sidoo kale kan waa soo celinay, kan ayuu soo ahaa. taas waa qaabka aad marna u bedeli kartid qaabka ama iconka siduu uu yahay marna aad soo celin kartid. waxaan rajeynayaa in casharkan aad fahantay. casharkan casharka ku xiga. salaama.